golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta dood adag waxa ay ka yeesheen xeerka aaga ganacsiga canshuuraha ka caagan xeerkani oo dhawaan madaxweynaha Somaliland u gudbiyay golaha wakiilada ee Somaliland Xamse Dabaare ayaa Hargeysa ka soo warmay fadhigan ay maanta yeesheen golaha wakiilada Somaliland ayaa lagaga doodayay mid kamid ah saddexdii xeer oo dhawaan madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi u soo gudbiyay golaha waxaana kala fadhigaysay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale doodta xildhibaanadaasi waxay ku soo qaateen inaanaysan marnaba saxayn in lagu fududaado xeerarkan waxaana ay sheegeen in loo saaro dad xeel dheerayaal ah waxa weeyaan xeer aad muhiim u ah muhiimadiisuna waxay u baahan tahay expert legal advice qof sharci yaqaan ah oo ku takhasusay free zone arrimihiisa fully expert kuma marka gudoomiye waxa loo baahan yahay expert legal advice free zone ku takhasusa waxyaabaha aan xeerka kan xukuumadii tan ka horeysay isla kulmiye weeyaan laakiin Axmed Maxamed Siiraanyo way hayaan xeerka kan may keenin madaxweynaha imika joogaana 3 sanadood baa u dhamaanaya isla muu keenin iminka aad iyo aad ayaan ula yaabanahay muddo yar oo goluhu uu gelayo fasax gelayo ansixiyo oo soo dhameeya waxa digreetadii ku qornayd madaxweynuhu soo gudbiyay wadanka u baahan wadanku waa baahan yahay laakiin waxa Soomaalidu tiraahdaa waan baahanahay bahla xuleen looma noqdo hadii alla yiraahdo kan inagu kululaado inagu xukumaado marka waynu hadhowto isqoomayn doona akhriyo oo iyada saddexdii xeer baa la akhriyay oo xeerka dibka ugu horeeyo in goluhu ka doodaba soo jeedinay waxa kala soo jeedinaya iyana khubaro sharci oo maxay tahay sharciyada caalamiga ah bartay iyaguna ay ku jiraan khubarada maanta waxa isleeyahay DP Wall markay heshiiskiisa saxinaynay ee horumarka la gaadhay ee waa tii golayaasha isku khilaafsanaayeen Xaamud baa sheegay horumar bay ahayd waynu dareenay laakiin waxaan qabaa waxyaalaha maanta ka dhimanaa isleeyahay waa ka dhiman yihiin waxa weeye kafiirsanaantii iyo degdegii wixii maanta ka dhimanay laga dareemaya waxa weeye ku degdegii aynu ku degdegnay heshiiskii oo dhammaystiran leeyo keenin nidaamkiisii wixii ka dhinaa un baa maanta ka dhiman waxaan leeyahay xeerarka ayaa lagu degdegay xeerkan waxaan ku arkay discrepancies fara badan discrepancies waxa la yiraahdaa afgriisiga Soomaaliya ma kala macnaheeyo ila watan la keenay isagoo Ingiriisiga Soomaaliya anigu Ingiriis baan ku hadlaynaa discrepancies waxa weeye waxyaalo iska hor imaanayo isdiidan oo isjiiraya horta marka ugu horeysa madaxweynuhu xeerkan markay loo soo gudbiyeen inkastoo heerinkii golaha wakiilada lagu soo daabacay waxay ahayd in madaxtooyada malaade markii shirgudoonkeena waan ixtiraamaya shirgudoonka markii loo keeno ku soo raaciyay laakiin madaxweynaha heerinka waxa iskale waa heerinkii golaha wakiilada marka anaga wali maanaan arag qodobadan dastuuriga ee uu xuskaday madaxweynuhu qodobka 11aad 5-7aad 6-7aad dastuurka qaranka qodobadaas waxay fiican yihiin inay waafaqsan yihiin in si mugle loo eego imika waa laga weydiinayay qolooyinka dhalinyarada meesha waxaan eegay bal qodobadani inay waafaqsan yihiin Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa